بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha iyo dad waxaa jira marka ay ka maqan yihiin hadal walba oo xun, dhaqan walba oo xun kugu tilmaamaya kaa dhigaya inaad tahay qof aad u xun. markay ku yimaadaana way kula fariisanayaan, way kula qosliyaan, way kula sheekaysanayaan, waxay ku tusayaan saaxiibtinimo, waxay ku tusayaan walaalnimo, waxay ku tusayaan jacayl, intuba ay been tahay. sababta ay tahay qofka aad jeceshahay waad ammaantaaye xumaan kama sheegtid. qofkaasi wuxuu ku sifaysan yahay inuu yahay laba wajiile. qofka laba wajiilaha ana diintu waxay inoo sheegtay inuu yahay qofkaasi munaafiq. marka walaalkayo walaashay ka dheerow inaad noqoto qof laba wajiile ah oo sifooyinkii ama tilmaamihii munaafiqiinta lagu yaqaanay qaata oo ku sifaysnaada. Assalaamu calaykum.